munaasabadan oo ka dhacday magaalada Hague ee wadanka Netherlands waxaa lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo waliba golihiisa wasiirada oo dhawaan baarlamaanku ansixiyeen. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan wadankan Holland ayaa waxaa dadkii ka soo qayb galay ay si weyn ugu sheekeeyeen xaaladda Soomaaliya ayagoona si weyn uga dardaarmay dawladda cusub ee Soomaaliya ee dhawaan uu baarlamaanka ansixiyay iyo waliba ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inay wax ka qabtaan arrimaha amniga iyo waliba sidoo kale inay la dagaalamaan musuqmaasuqa. ayadoo sidoo kale dadkii munaasabadan ka hadlay ay sheegeen in wax badan laga qabto arrimaha abaaraha oo ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka si weyn loogu gargaaro. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii munaasabadan ka hadashay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa marka ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilkooda ku guuleeyo. midda kale waxaa kaloo dardaarana madaxdu marka haddii ay ku rooyaan wax dhib uu ka hor yimaadiin say u qarinayaan marka dambe xaaladu qaraxday yidhaaheen halkaasay ka xumaatay. xukuumaddu rabitaanka dadweynaha ku yimid madaxweynuhu ra'iisul wasaarahana asaas soo magacaabay. waxaan fikradda aan u jeedinayaa ay tahay markay waxay la kulmaan inay dadweynaha shacabka soo doortay oo ayaga codkooda ay ku yimideen ay u gudbiyaan say isaga qabtaan dhibaatada hor istaagaysa qaranka. aan dawladda cusub u soo jeediyo taladaas koow waxa waaye aniga dhinaca amniga haddaan amni la helin wax loo hagaagaayo maaha iyo cadaaladda iyo garsoorka iyo muxuu ahaaye in lala dagaalamo musuqmaasuqa. intaas ayaan ku soo koobay. waxaan rabaa marka inaan ku daro maanta waa laga badiyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. xaqiiqdii waxaan rabaa inaan ka hadlo khudbadiisii ereyuu ku soo daray oo ahayd waxaan la dagaalamaynaa musuqmaasuqa. waxaan rabnaa waddanka Soomaaliya sidaad ka horeysaan dhibaatooyin badan baa ka taagan oo aan ognahay muddadan inay aafaysay oo uu ka mid yahay musuqmaasuqa. waxaan codsanaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka inay soo bandhigaan habka ugu wanaagsan ee lagula duco. marka waxaan jecelahay anigoo ku hadlaya magaciina iyo magaca dalladda guud ee IFSAN guddigeeda inaan dawladdaas cusub oo hormoodka u yahay marka madaxweynaha laga soo gudbo mudane Khayre iyo wasiiradiisa oo kol dhow la ansixiyey waa u ducaynaynaa in ilaahay shaqadaas loo igmaday uu la garab galo. sababtoo ah Soomaaliya dhibka lagu dhacay oo anagu mas-uulka aan ka nahay loona baahan yahay inaan xallino annagaana la ka rabaa waayo ilaahay maskaxuuna siiyey. marka ilaahay ha ku garab galo annagana waxaana la ka rabaa inaan la shaqayno oo aan maahaynu isku layno taa waa mid. marka waddanka waxaan ugu dheeraaday nabadgelyadiisa in ummadda laysu soo dhoweeyo oo nabadda la dhigo geedka hoostiisa oo la heshiisiyo. dabi heshiisiin waa in ay hawsha ka bilaabaan qolo walba geedka hoostiisa loogu tago. maxaa tabanaysaa qolo kasta maanta Soomaalidu way dhaawacan tahay dhib bay tirsanaysaa. haddaynan isu dulqaadan oo ismaslaxan oo inaan heshiin waad aragtaan cudurraa inoo dheer cadowba inoo dheer abaara inoo dheer xaggayna la gaaraysaa. intii munaasabada ay socotay ayaa sidoo kale waxaa qadka telefoonka soo galay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo bulshadii munaasabadan ka soo qayb gashay u sheegay in ay jirto rajo weyn isla markaasna wax weyn ay ka qaban doonaan arrimaha ammaanka iyo waliba dhinaca musuqmaasuqa. asigoona sheegay in wax badan hadda laga qabanayo arrimaha abaaraha. waxaan ugu bigaareynaya waddanka waxaa ka dhalatay dawlad cusub madaxweyne cusub ra'iisul wasaare cusub oo hadafkooda siyaasadeed uu ka duwan yahay kii hore oo aaminsan inay muhiim tahay si aad u dhow loola shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed oo aaminsan in laga gudbo xilligii jahlaysiga iyo xilligii musuqmaasuqa oo aaminsan dadka Soomaaliyeed in laysu keeno oo aaminsan kala shakiga in lagu bedelay aaminaad in lagu bedelo jacayl dadaal la'aanta in lagu bedelo dadaal aad u badan. maxamed xuseen taajirow, warbaahinta qaranka magaalada Den Haag, wadanka Netherlands.